diyaaraddan aad aragtaanoo gadaalkayaga saaran gadaalkayaga joogto waxa weeyaan waxay qaadaysaa ilaahay hadduu yiraahdo maanta qalabkii shaybaarka iyo qalabkii kale loogu talagalay ka hortagga maxaan iraahdaa lagula dagaalamayo cudurkan COVID-19 waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo in dawlad goboleedka Hirshabeelle mar dhow uu awood u heli doono in shaybaarkiisa uu baari doono ilaahay hadduu yiraahdo ama samayn doono testiyada sida aan Muqdisho iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland ay u sameynayaan haddeer maxaan dhahdaa ayaa waxaan rajaynaynaa ayaguna inay qayb weyn ka qaadan doonaan ogaanshaha dhibaatada heerka ay gaarsiisan tahay waxaan aaminsanahay in gobolada oo dhan uu gaaray cudurkan waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo in qayb libaax ay ka soo qaadan doonaan tiimka maanta meesha aadaya waxaan leenahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka wada kiciyo dhibaatadan faafideedana ha naga yareeyo bishan Ramadaan barakaysan darteedna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ummadda Soomaaliyeed dhibka uu u yareeyo insha Allah dawladda federaalka Soomaaliya wax walba isku dayaysaa siday u xakameyn lahayd cudurkan waana waajibna saaran isla mar ahaantaana aan tallaabo walba qaadno sidaan cudurkan ula dagaali lahayn waxaan rajaynayaa khayr ilaahay hadduu yiraahdo halka kan waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo wada shaqaynta xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kala duwan ee federaalka oo ay ka tahay wasaaradda caafimaadka oo xil weyn iska saaray inay ummadda Soomaaliyeed oo uu farabaan ku hayo caabuqan COVID-19 inay la garab istaagaan waxa ay ayagu hayaan iyo wax kasta oo ay ka helaan adduunweynaha inay si cadaalad ugu qaybshaan maanta farxad bay noo tahay waxaana taas aan macnaha aan rabaa inaan ku qancino dadweynaha Soomaaliyeed inay si cadaalad ay caafimaad u helayaan gaar ahaan Hirshabeellana ay heli doonto adeega haddii alla idmo ka socdo Muqdisho iyo isteediyada kaleba si siman inay u heli doonaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa